Columbus waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Kamaal Xaashi Maxamuud oo ka tirsan xildhibaanada federaalka Itoobiya. xildhibaanka waxaa soo dhaweeyay jaaliyada deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya iyo waliba jaaliyadaha kale ee deegaanadaas ka soo jeeda. xildhibaanka oo ku sugnaa dalkan Mareykanka dhawaanahanba waxa uu kulamo duceedyo la qaadanayay hay'adaha caalamiga iyo jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanada Soomaalida Itoobiya ee ku nool gobolada Minnesota iyo Ohio, isagoo sidoo kalena booqday gobolo kale oo dalkan Mareykanka. ujeedada socdaalka xildhibaan Kamaal Xaashi Maxamuud waxa ay salka ku haysay sidii jaaliyadaha deegaanada Itoobiya gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka loogu dhiirigelin lahaa in ay sameystaan maalgashi dhan walba leh, isagoo ku booriyay in ay ku dhiiradaan tagista dalka kana faa'iideystaan nimcooyinka yaala. hay-adda Muslim Aid USA oo bixisay qalab caafimaad oo aad u fara badan xildhibaankuna sabab u ahaa ayuu uga mahadceliyay, isagoo xusay in qalabkan oo ku kacaya adduun dhan 14 milyan oo dollarka Mareykanka loo qaybin doono isbitaalada Itoobiya oo ay ugu horeeyaan kuwa deegaanada Soomaalida. kasoo qaybgalayaasha xafladda soo dhaweynta ee Columbus loogu sameeyay xildhibaanka ayaa xildhibaanka uga mahadceliyay dadaalkiisa, waxayna ka codsadeen in dadka qurbaha ka laabanaya ee maalgashiga ku sameysanaya deegaanadaas loo naxariisto oo canshuuraha laga qafiifiyo, taasoo dhiirigelin u noqon karta. barnaamijkii soo dhaweynta xildhibaankana waxa uu dhacay sida tan. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ilaahay baa mahad iska leh, caawa isku kaaga keenay munaasabadan quruxda badan leh eenu ku soo dhaweynayno walaalkeen xildhibaan Kamaal Xaashi Maxamuud oo ah xildhibaan federaalka Itoobiya oo ku metela Soomaalida kilka Soomaalida. xafladda caawa waxoogaa aan ku yar raagnay bilaabisteeda raaligelin baan marka la ka bixinaynaa insha Allah. hadda waynu iska bilaabaynaa. qofka muslimka waxa lagu qiimeeyaa sida uu leeyahay Zayn al-Aabidiin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib laba shay oo ah inuu qofku aqoon u leeyahay baahida bulshadiisu ay qabto iyo doorka kaga aadan. al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma sidaas uu oran jiray. Kamaal ولو أن إله سبحانه وتعالى هرتيس أدومه زكو تسكيينين هذا رنتي سفوين قالئة أيو ليه مدد يريد وحد نلتشوغي أما أصفر ككو أها ودن كان نشوغنو بفضل الله تعالى وحاوسو رق الشيء إن ألاب فربضانو يدد كينو أباهين ديغان كقفكي سو أركيبا قرانيا أنو أو بري اسبتال كودان سوق لبيني دغحبور جيجيغا ميل بدن وان غرانيا باهيدا تاalo marka sariira badan oo dadka bukaanka ay u baahan yihiin iyo baabuurta dadka curiyaanka ay ku socdaan kuwa fara badan bi Ilaahay wuxuu waafajiyay inuu deegaankii u diro. maalin dhaweydna saad arkayseen ama idaacada VOA dadkiina daawada waxay mucaahado kala saxiixdeen Muslim USAID oo runtii qalab fara badan oo qalab caafimaad iyadana wadanka u diraysay una diri doonta. waliba waxa lagu qiyaasay Kamaal baa isixi doona hadaan khaldanahay 14 milyan oo dollar qalab dhisma ama caafimaad oo inta lagu qiimeeyay. ayu Kamaal bifadlillahi ta'ala wuxuu Ilaahay waafajiyay in uu muddadii yareedu joogo mucaahadada ama memorandum of understanding waxa la yiraahdo intuu saxeexay isagoo dadkiisa u danqanaya in maanta dadkeenu ay ka faa'iideysan doonaan. waana arin runtii uu aad ugu mahadsan yahay weeyaan. waxaan rabaa marka inaan iraahdo sidaasay diinteenu waxay tiri qofka muslimka wuxuu ku qiimeysan yahay baahida bulshadiisu ay qabto inuu garanayo iyo doorka kaga aadan. waxaan leenahay marka insha Allah ta'ala walaalkeen Kamaal wuxuu ku sifoobay inuu midda koowaad garto bulshadan uu mas'uuliyadeeda qaaday baahidii kaga aadanayd muddo yarna waxa weeyaan Ilaahay uu waafajiyay qalabka ay dadkeenu u baahan yihiin 14 milyan ee dollar ku qiimeysan in maanta waxa weeyaan dadkeenu ay ka faa'iidi doonaan. waana xiriir joogto noqon doona oo mar walba u soo noqon doona. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa runtii oo mudan in la xuso dhalinyarada haween iyo rag bale ee soo qaban qaabiyay madashan soo dhaweynta aynu soo dhaweynayno walaalkeen xildhibaan Kamaal Xaashi oo inooga yimiday wadanka Itoobiya dawlad deegaanka Soomaalida oo ah wadankeenii inta
ugu badani ku nooshahay Soomaalida cadadka lagu qiyaasaa 10 milyan kama yaro dadka degani marka aynu ku soo dhaweynayno aynu noo warramo oo mas'uuliyadda uu ka hayo bulshada uu hayo ee dawladda federaalka iyo deegaanka mas'uuliyadaha ka saaran inuu caawina la wadaago ayaynu ku soo dhaweynaynaa halkan waxaan kamaal u sheegaynaa Columbus waxa degan dad aad iyo aad u qiimo badan oo runtii xariira oo marka ay noqoto martigelis maqaamkoodu aad soreeyo ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiye cid kasta oo timaadana sida iyo si ka qurux badan bay u soo dhaweeyaan halka cidda joogta marka waa Soomaali way wada dhan tahay adayna ku soo dhaweynayaan waxay ku jiraan rag badan oo mas'uuliina oo culimo leh oo aqoon-yahan leh oo mas'uuliin ka socota siriga iyo jooga waxa kale oo inoo iman lahaa xildhibaan ka socda magaaladan Columbus macal asab caawina lama joogo laakiin inuu ka soo qayb galahayd marka intaasina waxay maanta diyaar u yihiin inay ku soo dhaweeyaan nin waliba kelmadiisuna halkan ka orani marka aad iyo aad baad u mahadsantiin hadalka badin maayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay calaamad u tahay in ummad intaan la egay ku timaado sida walaalihii ugu horeeyay u sheegeen kartida iyo hufnaanta leh maamul wanaagga leh maamulka aad samayseen aad ku matasho federaalka aniga 20 casho ka hor baan joogay Addis Ababa soo maray Somali State iyo masuurta galin inaan gaaro laakiin aad baan ola socdaa waxyaabaha foundationka oo ah ummad inay horumarto oo wax u hagaagaan waxaa jira list of items haddii la helo ay arrimuhu hagaagaan legitimacy-ga waa qayb ka mid ah good governance-ga iyo good representation qayb ka mid ah weeye sheekh horseed imaamkayga ayaa halkan ka sheegay in doing a public good activitieska halkan intaad joogtay ummadda waxyaabaha quality of life ku siyaadiya horumarka u keenay inaad ku mashquulsaneed oo wax ka qabatay nin aanu saaxiib nahay oo gobolada mid ka mid ah mar governor ka ahaa state president ka ahaa Cabdiwali Gaas la yiraahdo ayaa maalin wuxuu ka hadlay meel public wuxuu yiri su'aal baa la weydiinay professor ay weydiiyay wuxuu yiri sababta Soomaalida meel kasto ay tagaan haday Europe tagaan haday North America tagaan haday East Africa meel ka mid ah degan yihiin ay horumarka u sameeyaan oo dad aad active ah oo waxgal ah oo karti badan oo ganacsi haday noqoto aqoonta guul gaar ah ay u noqdaan laakiin wadankii ay deganaayeen ay madaxa isku la jiraan oo su'aashaas iiga soo jawaabtu waan raadinayaa uu yiri wali Cabdiwali laakiin aniga hadaan dubaha ku dhufto sababtu wax kale ma aha arrimaha asaasiga ummadda waxa ka dhaxeeya public work public good ka ayaan inta badan dayacnaa muqdisho aan soo maray daaraha la dhisayo iyo dabaqyada socda iyo private sector-ka is booming hase ahaatee wixii dadka ka dhaxeeya ummadda public interest-ga ahaa ayaa dayacan oo cid iska xil saartay ma jirto magaalada ku soo dhawow Ohio Columbus oo nala leedahay gaar ahaan wax runtii qoys ahaan markaan hadda inagu Soomaalinahay qoys laga maarmay aad hadda qoyska aad sii tahay qoys Soomaalinimada jecel oo nabadgelyada jecel oo Soomaalinimada jecel baa ku naqaana inuu yahay marka waxyaabo fara badan baad yaad kulmisanaysaa insha Allah hadii la yiraahdo أنا أرنت كان بقاضي مركب حارة أنا كقولة دردارمو مرة هداد حلبان فضراله إثيوبيا حلبان هذا كان بدأتهاي وحقيقة مقتنع كلية كتهاي ومد الصوماليات إلى هالك أفرده تكون أنت حرتها أنت هذا ديله إنه دولتها كانوا كجستبا إلى كلية أفرده ما هي أنا هذا مثله وحلوين وعاد مودو إن هو صوماليا جوجا أين هينين بعض هاي سمر كعضو ساسي كده أنت runtii waa xil weyn meesha wadanka Itoobiya go'aanka laga gaarayo hadii aad fadhido ilaa xildhibaanada go'aamada gaara sidaan ka war hayno sharci dejinta iyaga ah dadka aad ka dhalatay baahan ee Soomaaliya magaca Soomaalida watan aad garanayso intay dheeyeen ama gudaha Soomaaliya xorta ha joogan
ama middan hadda meesha u joogtaba ha noqoto xil badan ba culus baa adeer yaabtiyow yaa lagaa sugayaa ilaahay ha kula garab galo duriyadda ka soo jeedina waa duriyad ku astaysan Soomaalinimo iyo maxaan ku aqoon iyo waxbarasho iyo xigmad qaali ah yaa reerka ku naqaana runtii waxaan qabnaa in arinta ayada aad ilaahay uu wax kugu ducaynaynaa kula garab galo waxaan rabaa kaloo inaan ku xusuusiyo maadaama ummadda Soomaaliyeed aad xildhibaan u tahay waxaan arkaynaa oo maqlaynaa oo jirta in arrimo lala yaabo ay Soomaaliya maanta ka socdaan marka ka soo qaadno Puntland buuraha wax ka dhacay Soomaaliya waxa ku maamulada laba indhood baa la yiri way isku hurdaan ma kala hurdaan baa la yiri hada hurdo ku qabato illa waan ka gamay oo way seexan illa way soo jeedo ma la heli dhibaatada halka ka socota waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay haysataa kuwa aad mas'uulka ka tahay ee gaar ahaan meesha u fadhido iyo kuwa horta way haysataa in aad xigmadiina isugu geysaan ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed aad tihiin cadawga sidii maartay looga gargaari lahaa Puntland dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysatay cadawga ku soo duulay iyadoo ku faraynaa maadaama dawlad qadiima aad Soomaalida matashood u joogto 8 sano ugu dambeysay ama 9kii 7 jeer baa soo tagay iyo jigjiga wax badan baanan runtii dareemayaa inuu wadankaas markii dawladdan wixii ka horeeyay iyo oo hadda uu ka tirsan yahay xildhibaanku dawlad deegaanka dhibaatooyin tiro badan oo aan soo koobi karin ba iska jinsay doonaan ba aade laakiin kadib dawladdan cusub isbedel bay la timid xagga dawlad dhiska ammaanka waxbarasho caafimaad si walba wad ogtihiin ammaanka meelahay dagaaladii ama al-shabaab ha ahaato ama kuwiis dhahaato email walba ay maaragtay sida ay maaragtay u sugtay dadka ammaankiisa midda kale haddii ay Soomaaliya jiri jirtay inaan aragno qolooyin qeylinayo oo kala jigjigaan ka neeyo dawladdeegaanka ka neeyo jabhada asaasayna qolaa asaasayna arintaas way isbedeshay maanta meesha la imaanayo waa jigjiga oo Soomaaliya loo imaanayo oo hadii la lagu soo hiranayo waayo Soomaaliya waxa ka jira waa ognahay meesha kaliya maanta nabad qabta ee Soomaalinimadii dareenka Soomaalinimo uu ka jiro waxaan u qabaa inay magaalada jigjiga tahay taasina waa kuugu hambalyeynaya xildhibaan hadii alla idmana kulli hadda horseed baa sheegay waa dadka farakutiriska oo waxay barteen iyo aqoontoodii iyo waxay soo inay dalkoodii wax un ku celiyaan ku fakarahayo intii yareedo ay joogtay waxaad qabatay baa ka marxaati kacaya taasina waa kugu amaanayaa insha Allah qof kasta oo Soomaali ana waxa la gudboon waxa uu bartay inuu dalkiisi wax ku celiyo markaas dalkii wax buu noqonayaa runtii markii laga qurbo joogaada laga sheekeynayay anigu Soomaaliland waa tagay Puntland waa tagay meel kalena waa tagay waxaad moodaa hadda Soomaaliya waxa lambarka koobaad xagga ama amnigeedii dawladiskeedii nidaamkeeda waa Soomaaliland labana waa Puntland inta badan waxaad moodaa dadkooda qurbo joogta ahayd inay wixii ay barteen iyo wixii ay haysteen ay ku celiyeen dalalkii ay ka yimaadeen laakiin xoogaa dawlad deegaanka wali waxa moodaa waa soo maray gobol badan baa tagay dawlad deegaanka qurbo joogtoodu ما عقبنا لكن وحنا وحنا هذا كدم بيا أن كده ينا الصومالي داس دالكيدي لساتيو أما أقونتي جيسي أما عافماتي جيسي أما قفوا اللي بوحوا كره إنه كعليو ومهم بيانو أساس أن مارتي سوتشي دي لها وضل وانصوركي ورت دول وانصوركي وخيرات كبروحو لكن ضد دول كاله وصلنا هيمانتا يجا بس كله ما صوركين مثلا بدولكو وينانتيسا iyo khayraadkiisa laba saac marka daawar ku socota laga yaabaa inaad aragtiin xoolo yar iyo wax yar meel dhaaqay waa iska cilay dhulka saas ciladu aha adoo Soomaaliya meesha gaarsiday idin sheegay hadaa dacana meel ceel ka qooto maalinta aan baa isla ka qori isla ka soo dul taagaya oo lagu oranayaa meeshana iska leh hadaa taqaanaan dhulka waa taqaanaanay jigjigan baabuur ka qaatay baabili baan maray waxaan sii maray wadadan la leexday wadadan jeer baan qaatay waxaan email xaggaan u socday emailka bari baan ka talaabay
webigaan ka tallaabay tuulada degmada u sabaysa ayaan sii maray raasa la yidhaahdo ginidh baana halkaa ka maray roobaan ka galay oromaan ka galay waan ka soo wareegay maalinta marka alla markaad meesha Soomaaliya istabta u horeysa aad daafto ayaa waxaad galaysaa dad nadaama system ka jiro ciidina wax koranayna baabuurkaad raacayso oo boonis furnaysa yaad ka timid iyo xagee baad ka timid aan goranayn adoo jigjiga ka baxay xalay oo seexdo degan markaad ka baxayso halkaas waa lagu joojin istabti intaas saacad baa lagu haysanayaa haddaad soo galayso banaanka soo galayso intaas waa lagu haysanayaa mar alla markaad istabta meesha Soomaaliya baa soo galaysaa xagee baad ka timid iyo baaritaan iyo waan la soo wareegay adisoodan tagay waan ka soo wareegay ilaa aan jijiya ku imid markii aan adisoo ka imanayay nin orama ayaan iskara fadhinay wuxuu yiri fiiri buurahan buu yiri waa kelmadda weli maskaxayda ku xisii jirto wuxuu yiri buur kasta meel kasta u jeedaa dad baa saaran ha qof kasta wuxuu leeyahay 20 mitir buu leeyahay buu yiri wuxuu yiri idinkoo dhulka inta leeg haysta oo bannaan ummadana idin ag taagan tahay yaa haddana maalin kasta ay soo haystaan muu reer anagu waan fiirsanaynaa buu yiri waan fiirsanaynaa marka inaga qurba joog ahaan door weyn baa leenahay waxa kamid ah wax qabadkan kamid ah baahidu way badan tahay waxay u baahannahay in aan sidii aan Soomaalinimo iyo walaaltinimo aan dadkeena isu keenayn waan ku faraxsanahay meesha u sareysay xildhibaanku ka yimid in uu dib u soo eego gobolkeena iyo mas'uuliyiintiisa iyo ummadda in la walaaleeyo in la Soomaalimeeyo in la islaameeyo haddaan rabno inaan ummadda baaxadda badan ee ku dhex jiro inaan wax la qaybsano qurba joogay dalkeenii xoolaa yaalla lacag baa taalla maal baa yaalla waxaan ilaahay halkan waxa meeyaan halka cilmi baa noo yaalla intii awlaad noogu dhalatay ilaahay ha noo badbaadiyo wixii cilmi noo bartay inay noogu jiraan intii maanta jaamacada nooga baxdeen ciyaar maaha way noo baxeen ilaahayna uu noo barakeyn doonaa laakiin waxa weeyaan dalkeenii maxaan ku ceshanaa runtii maanta maalka yaalla haddii aad geel iibsatid 100 halaad waxba maaha haddaad ku riyaad iibsatid macna ma leh lacag maaha haddaad konton dhaqato waan dhargeyna beer maanta wax ka fiican oo jira dhulkeenii waa laga dhargay halkan 30 sano jooga wali ma tagin runtii laakiin qalbigaygu habeen walba xagga ma seexda 30 sano wallahi been igama aha qalbigaygu wali haada habeen niyad kuma seexan halka baan jira laakiin jirkaygu halkan buu taagan yahay nasiib wanaag dhowrkii sano ugu dambeeyay walaalkay baan diray wuxuu noo qabtay aniga isaga oo qura maanta mashruuc aan samaysanay insha Allah $1 milyan ka soo goyn doona beeraha ay sameynay waa halka ay niga ma sheekayn karo dhowr kun oo geed oo orange haddaad beeratay geedkiiba hadduu $50 kaaga soo go'o $100 bal samee inta oo geed oo avocado aan beeray inta kun ee geed muus aan beeray inta cambe aan beeray waa nin sheegay waxba nigama qarsanayo laakiin waxa aan leeyahay waxa aan ku helayna halkan 10 sano halkan waxaad ka shaqaysan adigoo dalkaaga maal gashada kuwii xaqiina wax u tara sanad quraad ku heli 10 sano waxaad ku helaysaa xildhibaane waxaan rabnaa inaan ku sheego annaga Soomaali ahaan Soomaaliya markii la dhaho Soomaaliya gobolada maqan Jabuuti ogaadende ama Soomaali galbeed iyo NFT waxaan ku sameynay wax walba oo bini aadan loo qabto dhiig fara badan waa u galnay waxaan kaloon matalan gaar ahaan burburka Soomaaliya ka dhacay mararka qaarkood waxaa loo aanayaa dagaalkii 77 aanu u galnay Ethiopia Soomaalida Ethiopia
sida hadda waayadan muuqata oo maalan ka muuqata walaalaheen Soomaalida ah dheh Jabuuti dheh Soomaali galbeed ama maalan TDS dowlad deegaanka Soomaalida iyo NFD waxaad malaynaysaa mararka qaarkood inay walaalahaas dalkeena hadda burbursanaa 35 sano inay mararka qaarkood dhibaato nagu hayaan waxaan idinka rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idinka rabnaa waxtar waxaan idinka rabnaa at least haddaydan waxba noo qaban karin inaad xoogaa harantida nalka yareeyo sababta aan kugu sheegayo arrintaas waxay tahay waxaad tahay nin dhalinyaro ah runtii rag saaxiibo aan nahay oo halkan fadhiya waxay ka sheegeen wanaag fara badan waxaan inta kugu sheegayo wax kale ma aha waxaan kugu sheegayaa waxa waaye in maalan Soomaalida haddii ay imaato dowlad deegaanka Soomaalida ama Addis Ababa ama afka markaan ku ballaariyo deegaanka Samaroonka in maalan aad loo soo dhaweeyo oo wax lala qabto waxay u baahan yihiin sababtu waxa waaye anaga waxaan ku jirnaa hal midna waana haysataayo dhammaanteen Soomaalida Ilaahay wuxuu nagu diray dowladnimada sida ay tahay iyo sida u shaqeyso waa ku dhacnay waxyaalo badan oo ku wanaagsannahay waa la sheegay laakiin xagga nidaamka dawliga ah oo kala dambeynta leh oo nidaamka leh aad baan ugu liidanaa caawa xafladii horeen ka hadli jiray way ka duwanta Soomaalidu waxa tira canaanka yaab reer madoojo Itoobiya calankeeda markaad aragto wax badan baan oran karin midda kalena waxa weeyaan caawa Soomaali community lama kala hadhin reer walba way joogaan deegaan walba waa laga joogaa gobol walba waa laga joogaa marka dhamaantiin horta waa mahadsantihiin adigana waxaan ku leeyahay welcome to magaaladayada dad waxaan nahay qaxootiya madmadow muslina dantooda gabay caruurtoodii dhamaatay qabuuraha buuxiyay dhibaatadoodu badan tahay waxba yaan lagu faanay laakiin dib badan baa Soomaali community halkan ku haysta ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu naga dhigo kuwii noqda ee dalkoodii u laabta dad badan baa nagu jira 5 sano ka hor 10 sano ka hor nala joogay geeriyooday xabaalaha aan geynay caruurtoodina gacan ku jirin oo badan baa nala jooga hooyooyinka iyo aabaha halkan joogay markay dhintaan caruurtoodu waa Amerikaan saxa dibna uma soo noqonayaan dalkan iyo waxaan laga sheekeynayaa dhaqan iyo waxana uma badaarnaba dad Mareykan madow ah oo muslimadooduna aanay nusqaan tahay baanu dhalay horta wadaadada ma ogi waa yara dhaamaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaadaha noo xafido taasi horta waa taa anu horta run baan ka sheegayaa waxaan ka hadla waxa igu taqaanay runta Soomaalidan la kaftami jireen caawa waxa weeyaan xogaa yara cabsi baa igu jirta horta anu wadanka waan tagay dowlad deegaanka wax badan baa soo maray Tirdha baan tagay Harar baan tagay Baabuli baan tagay Jigjigaan tagay wajaale aw barre maxaan ku dhahdaa deegaankaas Haraw oo dhan iyo magaalooyinka ku yaal dhama soo maray nimcooyin badan baa jira nusqaan badanna way jirtaa nimcooyin badan baa jiro anoo Somaliland daro gaari Somaliland laga leeyahay balayd Somaliland ku yaala baan Boorama ilaa iyo Tirdhaba ku tagay ilaa Jigjiga kaga soo wareegay taasi horta waa nimco weeyaan waayo xaafadi waxa ugu wareegto waa xasrad ma dhaafi kartid borderka Mexico laakiin idinkoo miidhan baa noo fududeeyay taas haddaydan idinku kursiga fadhiin taasi horta ma dhacdeen nimcada kale qudrada ka baxda anu horta de qudrada harawaan ka imi harawa xabxabka iyo tuqumka iyo masangada ka go'dabaan ilaa iyo geynaa maxaan ku dhahdaa burco aan geynaa baabuur laga leeyahay burco iyo Hargeysa iyo Boorama laga leeyahay baa noo timaada tamaadka iyo anu hadda beerleydan ku jira idankii hadda hadlay beerleydan ku jira baa tamaadka iyo xabxabka noo qaada Soomaaliland noo geysa taasina waxa weeyaan on la baadhin on la qashqashin on la cashuurin on dhibaato dadka lagu haynin taasina waanu idinka mahadnaqaynaa dadkiina kuraasta sare waliba fadhiya iyo kuwa hoosba heer qabale iyo heer gobol iyo heer federaalba waa mahadsantihiin waxaan xasuustaa 2021 baan ka baxay Boorama xilli ay axad tahay galab tahay warqad yar baan ka samaystay aw barre la iga sameeyo gacanta lagu qoray
casarkii waan ka sii baxay la faciisa anoo jigjiga u socda bankaas la yiraahdo banka diida waaleed baa waxa igu qabtay ciidan federaal aniga gabadh kale saaxiibaday baan hayn xilli ay maqrib tahay baabuurkii baa lana joojiyey sharci ma wadano mustawaqa ma wadano baabuurka Soomaaliland baa laga leeyahay laba dumar baan nahay cadceeda niiqay dhigtay afxabashi ma garanayno warqadan wadanina afoojiri wayna joojiyeen baabuurkii iyo annagiiba waxa la yiri xarig baa tihiin baabuurkana jibriga la geenaya idinkana waa la idin xidhaya waxaan wacnay shakhsiyaad dawladda u shaqeeya oo maxaan ku dhahdaa jigjiga ku sugnaa iyaga in lala hadlay qof Soomaaliyana kuma jirin ayaa xorriyadeedii la nasiyay baabuurkeygii la noo soo celiyay saacado yar baan meesha joognay sidii baan ku baxnay xildhibaanku horta waa selected wuxuu yahay 12 qof wuxuu ku jiraa xubinta fulinta waa 500 oo xildhibaan laakiin wuxuu ku jiraa qaybta ugu sareysa waana arin aad u muhiim ah oo xagga ugu sareysay wax ansixiya ama wax saxiix ayuu ku jiraa kamaal aanu darwalkiisa ahaa maanta oo la shaqeynay insha Allah soo dhaweynta kamid ahayd maartay in wax la isku hurana adoo reerkaaga iyo dadka ay ku baahan yihiin hadana waa in waxa ka horeysa de qofku inuu walaalkiisa muslimka inuu istaago xildhibaanku waxaan u istaagay waxa horta qofku haduu hagaajiyo ida aslaha Allahu al-abd ida aslaha baynahu wa bayna Allah aslaha Allahu baynahu wa bayna khalqihi haduu qofku hagaajiyo xiriirka isaga iyo Ilaahay u dhaxaysa isaga iyo xiriirka dadka u dhaxeeya uu hagaagaya ama wax hayso ama waxba haysanin haddii aad hagaajiso xiriirka adiga Ilaahay ka dhaxeeya khalqiga isku dhici maysa khalqiga wax ma taqaan Ilaahay waa ma taqaan xubbigu ku gelinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala xildhibaanku waxaan idin sheegayaa siradiisa idin sheegaya xildhibaanka ma faaninaya laakiin taa la socday waa in Ilaahay xusa waxaad ka dareemaysaa qof marka yani wanaaga uu dad Ilaahay u leeyahay dadka marka qofkan wax buu gaarsiin karaa ambiyada Ilaahay maxay haayeen Ilaahay baa doortay Ilaahay jalla wa ala laakiin maxay ku gaareen heerkaas wanaagii dadka gaarsiinayeen bay u gubanayeen qaar baa lagu dilay qaar baa miishaan lagu kala gooyay maxay ku timiday iyagu waxay u ordayeen u baratanayeen maxay ahayd in iyagu naftooda inay horumariyaan ma ahayd ma ahayn waxay ahayd inay naar ka badbaadiyaan nabigu wuxuu lahaa waxaan idin ahay sidii idinkoo ku daadanaya dab oo kale waa taqaana baasha la balanbalista dabka soo kuma daadato saasoo kale leeyahay nabigu aniguna waxaan idinka ilaalinayaa dabka ku daadataan haddii caawa dab aad shido oo bannaan ku shido dabkaasi waxa ku soo xayawaanka dhan baa ku soo ordaya saasoo nabigu wuxuu lahaa waxaan idinka ilaalinayaa naar ku daadataan waxaan marka hore xildhibaanka soo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda reer banaadir ee Mareykan oo dhan oo ku soo dhaweynaynaa waxa kaloo ku soo dhaweynayso qoladan ka dhasho ashraafta Columbus anigana madaxweynaha ahay iyagana ku soo dhaweynaya waxay kula kabtamaya markasta markii Soomaaliyeedkaas intii yimaadaan dadku waxay leeyihiin war Shariif maxaa u socotaa adeer raxmatahay war aniga dada iga jiraan la xagga ashraafa jirta reer banaadir jooga xagga ana represent gareeyo marka jazakallahu khairan كلكم لكن النبي وحير صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس تاسن إله كور جينا إلى جروب كاس إله وكوجر بإذن الله تعالى مدك على بريزيدنت كوحيجي جارسيني سا مصطفى عمر وحيجي جارسيني سا إن حلقف أما أشراف أما بنادر برلمان كون نومينيتد كدي وكدره سلس كل ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفكو حديو حليلك يسبي إله أدحي hadduu intaa sameeyo wax ka xumaanaya ma jiraan waa intaas ilaahay khayr si Cabdirasaaq wuu inoo soo koobay runta marka la sheegana waa intaas waxay ku soo gunaanadmaysaa in qofku xiriirka isaga ilaahay ka dhaxayo hagaajiyo marka waxa imanaysa in adiga iyo dadka aad waxooda cunin ummadda aad waxooda dhicin ummadda aad ihsaan iyo wanaag ka dhex shaqayso qofkana ilaahay hadduu ka baqayo wada dhimanana kulligeen waxaynu hormaanayno dhimanayno leena weydiinayo in xisaabinayo qof kasto adigoo kaligaaya oo aan lagu weydiinin qabiilkaaga oo aan lagu weydiinin walaalka oo aan lagu weydiinin hooyada oo kaliga lagu xisaabtamayo oo lagu oranayo wixii aad ummadan adigu horta naftaada aad qabatay yaad ilaahay dirti u qabatay marka wixii aad dulmi iyo dhibaato geysanahay naga hayo ilaahay waxaynu ka baryaynaa in kanaala sida laga sheegay ilaahay khayr siiyo ka sheegay iimaanku inooga waramay
ilaahay waxaynu uga baryaynaa hawshaa uu qabtay ilaahay ka saaysiiyo oo maalinta qiyaamo ilaahay uu xasanaadka iyo kii ugu daro miisaankiisa xasanaadka insha allahu tacaala waynu maqalay waa nin dadaalaya waa dhalinyaro ah wuu leeyahay future iyabaa ka horeeya insha allahu tacaala waxaynu insha allah Ethiopia anigu 1989 baan joogay iyo 90gii waxaan xasuustaa airportka oo aan qof xijaabin jirin waad garanaysaan markaad airportka 1989 soo gasho ina yaro xijaab sita baa yarka jirin maanta waxaad arkaysaa hablo saf ku jiro xijaab xiran alxamdulillah rabbil caalamiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه السلام الدمان أخيارت شرفت للرئي كولومبوس الكان سويمت قاسة وحسين سلام هيا حلبان كيميد إثيوبيا تيجان دورشة صوماليا الذي يجري يا صوماليا ما شاء الله وحلبان فدان صومها ما شاء الله سودو ولا الكي قولون اسمه ورئيسان دونا سو شيء أبوي أدي أنا حلبان كولومبوس US representative إسماعيل أسنى سقاسة والسلام هيا علماء أقوياء هذا دلني يراد صفية تصلو فنانة دي إني عنك أهيد ما شاء الله لما أنت ودون السلام هيا هدا أنا قلنا وإدين شوية وحنا ليه سود وو ري كولومبوس نوانا هاي أنا حلبان فدرال صومالي هدا نوعنا ري كولومبوس مركوان إسأرك دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم marka thank you aad u mahadsantii soo dhawaada farxad bay tahay aad maanta runtiina ka soo qayb galo xildhibaan Kamaal Xaashi soo dhawow magaalada Columbus Ohio aad iyo aad farxad noogu tahay runtii soo dhaweyntiisa Minnesota aad u daawanaya runtii jaariyada Minnesota sida gacmaha furan sharafta leh rag badan saaxiibanahay waliba xildhibaanna ay si sharafta ku soo dhaweeyeen xoogaa dib u dhac yaray u jiray oo xaflad kala ka nimaanay aniga iyo xildhibaanaduba marka farxad bay noo tahay runtii aan soo orodno sababta ay ku tahay runtii si guud baa la socdaa wax qabadyada uu ka qabtay dowladda deegaanka Soomaalida runtii dalka Ethiopia farxad bay noo tahay runtii waliba jaariyad aad u ballaaran oo runtii awood leh oo muuqata oo kala soo haya degan farxad noo tahay runtii si sharafta leh ayagana ay u joogaan ay runtii isbedelada deegaanada ay dhismaha ka socda runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo runtii adeer Maxamed Diiriyana gudoomiye Maxamed Diiri aad baa ka mahadcelinaya Sheekh Horseed runtii waa sheekheeni magaalada qof aad iyo aad qiimo ugu leh runtii farxad bay noo tahay xildhibaan inta aan ka maqlay wax qabadkaaga iyo bulshada runtii qurbo joogta waliba sidii ugu laaban karaan dalka ay dhaqaale u gashan karaan farxad bay noo tahay runtii anigu badan ma oga laakiin anigu deegaanka Ethiopia xataa ku soo koray dhowr sano aan deganaa anoo aad u daayar marka runtii jigjiga oo magaaladeedii runtii aan wali family runtii qayb badan family-geedna waliba hooyadii qaybooyin abtiyaasheedii walaalaheedii ku badan ay ku dhasheen marka farxad bay noo tahay runtii waa deegaan aan ku faano horumarka iyo runtii waxa ka socda iyo jaaliyadana runtii qurbaha joogta waa aad iyo aad bay runtii uga firfircoon yihiin marka farxad bay noo tahay runtii xildhibaan marka mar labaad maslaxad soo dhawow assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh xildhibaanku waa xildhibaan heer federaal ah isla markaana dowlad deegaanka guud ahaan xubnaha u fadhiya federaalka ayuu ka mid yahay laakiin marka la sii daadego waxaa odhan karaa haddana waa xildhibaan goob doorashadiisu ay tahay laba gobol waa gobolka faafan jigjiga caasimadda u tahay iyo gobolka city labada gobol goob doorashada magaceeda lagu asteeyey araabi waa meel magac leh safiya hadda way kacdo maqantahay waa meeshii geeli laga bixiyey lagu kala tirsaday magacaasi waa magac horta kulli internet faafreed way taqaanaaye magac macno weyn huween oo goobtaas waa goob xataa loo tago wax traditional healthiga biyo kulul baa la yidhaha marka waa centerka ugu xiga dirdhaba oo harmuukaale la yidhaaho iyo centerka ugu xiga degmada qarbayax xuduudda la leh oo abu furaan weliba lasii dhaafo canfarta la tago inta u dhaxaysa horto korasuga intaa dhan deegaan ahaan ayuu ka soo baxaa laakiin halkaasi waa halka doorashadiisa ama goob doorashadiisa ku astaysan waa xildhibaan Soomaaliyeed una fadhiya federaalka assalaamu calaykum waxaan jeclaystay inaan mahadnaq ku bilaabo awalan ilaahay waa mahaddas leh marka xigtana cid kastoo maanta isharaftay ee ajiibtay allah ni sharfo bal sacbigu mahadnaqa midda labaad runtii anu cashir badan baa ii soconayay inta qof ay iga horeysay hadlaysay dadka qaarkood waxaa laga tirahdaan qaarba waan xumaynay ee xumaysa ma jirto talaa ku jirtay dardaaran baa ku jirtay
waxa hala soo halka tilmaam baa ku jirtay qof rajo laga qaban baa wax loo tilmaamaa waxna sax la yiraahdaa marka dhammaantiinba waxa dardaarankiina waa qaatay iyagana bal hal ii mahadnaqa kuna la kala saarin ugu dambeyntii waxaa rabaa in la ii mahadnaqo dadkii sida gaarka aday in barnaamijkan noo hirgalo habeenii dhaardo oo dadaalayay shaqeynay imikana ku guda jira ugu horeeyay gudoomiyaha Faisal dhammaantood bas wada jir ii mahadnaq aad u maasantiin insha Allah intaan aanu socono waxaan u socdaa waxaan isku day doonaa fikrada u baahan yara faahfaahin iyo cadeyn maadaama meeshan ka socono loo baahan yahay waxaan cadeyno laakiin waxaan ii sheegi doonaa hadalka badin doonin inta badan maadaama la iga horeeyay horta waruno markastood xil aad hayso inaad wax qabatayna lagu sheego wax badan baa maqano waa sida abtay sheego hamar ma dhow wax badan baa looga baahan yahay taambo aan aamisanahay wax badan looga baahan yahay waa dhiirigelin iyo rajo weey wanaag kastood ugu sheegteen waxaan dhahay ilaahay ii rumee waa adag tahay markaad mas'uuliyad shacab hayso in lagu amaano ma suurta galayso waayo nin hilqaad qaad baa la yiri oo aad baad u badan tahay dadwal iska badan yahay shacabku ilaahay kama mahadnaq badan iska daadigo shakhsi oo habaadan qaban kareen marka insha Allah wax badan ilaahay ku qabta naga dhigo wii wanaagad nagu sheegteen oo ilaahay rumeeyo intaan adigu duceysaan ma jeclaanaya in badan maanta waa awalay duceeyo waxa rajayn doona hadii dooda la aqbalo wax badan idinku meesha joogtaan ka arki doontaan because ayaar ma dooda awa maanta aniga sugud laakiin waxaan uga bilaabi doonaa marka deegaanka Soomaalida la yiraahdo fikirka aan ka qabno oo waliba Ethiopia waxaan ka bilaabi doonaa matalaad halka marayso haday noqoto dhul ahaan haday noqoto siyaasad ahaan warada Ethiopia siyaasadda kala gedisan baa soo bedeli jiray wii hore intaan galo sheekada inaguma galayo laakiin marka maanta la dhaho wadanka weyn Ethiopia aad garanaysiin 120 milyan iyo wax ka badan shacab iskale marka Soomaali la dhaho saddexda qowmiyad ee ugu tira badan baan ku jirnaa marka Soomaali la dhaho wax fuulna marka dhul la dhaho naga ballarkana waxaanay saddexda deegaan ee ugu dhulka ballaaran baan nahay marka Ethiopia la dhaho wajin safka horaan kaga jirnaa qof kasta oo Soomaali ku hadlaya marka dal shisheeye ma arki karo de meelaad la suulka marka la tago maxaa la yiraahdaa raanka ilaa imisa la gaaro raanka la dhaho qofku darajo u soo bax marka la dhaho ilaa imisa la gaaro soo koobaad laba soo saddex ma sababtan ilaa saddex nugu meelana anaga ugu hornay baan laga dambeeya marka haddaan darajada saddexda ugu horeeyaba aan ku jirno haddaan nahay Soomaali si khaaska deegaanka Soomaalida Ethiopia ku yaalan ka soo jeedno ama dad kale oo af Soomaali ku hadlo qumeedaan Soomaali wadaagaadaan nahayba waanaan dareenno Ethiopia inay tahay meelaha waaweyn ee ballaaran oo ilaahayna siinaan iska degno iska lahaano dareen lahaanshana aan dareenno because marmar haddaad aragteen imika caawada anoo Columbus joogo haddaan hadhow marka halkan ka baxoon yara mooyinaan Mareykan jooga maayne anuguna caawad jiga joogaan u malaynayay odayaasha hadlayay salay soo dhaweynayay salaska duceysanayay wadanku aanu amran yahay alxamdulillah ma hadda iskale marka halkan aan dareen lahaasho dareemeynaa dhulka dhan iyo meesha dhan ni waramay halka ka taaganahay inaan dareen lahaasho dareeno Soomaalina meel kasta degtada ma kala maarmayso hadday kala maarmi lahayd xildhibaan Kamaal Haashi Soomaalidu uma timaadeen wala si qaybin la marka la imaanayo taasoo tusaale kala maarmayna dan Soomaalina